wareegto madaxweyne xukuumad goboleed ayaa lagu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoona laga qaaday taliye ku-xigeenka hore ee booliiska Hirshabelle. wareegtada lagu ogeysiyay dhammaan saraakiisha xilka laga qaaday kuwa la magacaabay iyo waliba sidoo kale taliska booliiska Hirshabelle, gudoomiyaasha gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, wasiirada amniga dowladda federaalka iyo Hirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa xilka lagu qaaday gaashaale sare Isaaq Cali Cabdulle, taliye ku-xigeenka hore ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana gaashaale dhexe Carab Yuusuf Nuur loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle. ayadana wareegtadan uu ku saxiixnaa madaxweyne goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. taliye ku-xigeenka cusub ee booliiska Hirshabelle uu magacaabay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hore dhowr jaga kaga soo qabtay ciidanka booliiska degmada Beledweyne, ayadana dhowr mar uu soo noqday taliye ciidanka xasilinta degmada Beledweyne. waxaa kaloo uu ka soo qayb qaatay dagaalada al-shabaab loogu xoreeyay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaana 10kii sano aan soo dhaafno uu qayb ka ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ka horgala gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Cabdishakuur Maxamed Xasan, ZAP TV, Beledweyne.